shirweynaha qaran ee warbaahinta Somaliland oo 2 maalmood socon doona ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa. Kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta Somaliland ergada ka soo qayb gashay warfidiyeenka iyo qoraa u badnaa Kasoko waxa kale oo furitaankiisa amarti ku ahaa mas'uuliyiin ka socota dawladda oo wasiiro u badnaa mas'uuliyiin ka socota xisbiyada mucaaradka ah mas'uuliyiinta ururada saxaafadda Somaliland iyo marti sharaf kale oo ku jiro wasiirkii hore warfaafinta dalka Kenya oo isla markaasna ah warfidiyeen leh idaacad madax bannaan. Kulankan ujeedkiisu yahay in xukuumadda iyo warfidiyeenku isla eegaan caqabadaha warbaahintu tabanayso iyo qaladaadka jira ee ay tahay in la saxo si madmadowga looga saaro wada shaqaynta warbaahinta iyo xukuumadda. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland ee Soldier Mudane Maxamuud Jaamac Cabdi Xuuto oo furitaanka kulankan ka hadlay ayaa sheegay kaalinta ay warbaahinta Somaliland ku leedahay dhismaha dawladnimo ee Somaliland. Waxaanu dhinacyo badan ka eegay dhibaatooyinka ay warbaahintu tirsanayso iyo caqabadaha ay kala kulmaan xukuumadda. Gudoomiye Xuuto waxa uu si gaar ah hoosta uga xariiqay culayska cashuuraha dhawaan xukuumaddu ku soo rogtay ku yihiin warbaahinta madaxa bannaan. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale dhaliilay gacanta ay dawladdu ka geysato horumarinta warbaahinta madaxa bannaan oo uu sheegay in ay dhiirigelin iyo dhisid u baahan tahay. mushkiladaha ay saxaafadda Somaliland la tiicaysa la daalacaysa waxa kamid ah madaxweyne Axmed Maxamed Silaayo 3 sano ka hor inuu halka ka ballan qaaday inuu saxaafadda u dhisi doono iskuul ama xarun ururka soo jeleeyahay oo lagu tababari doono saxafiyiinta Somaliland maadaama saxaafadda mar walba siyaasiyiinta xukuumadda ay ka cadato waxaan qabnaa himnigi iyo qorshihii madaxweyne Silaayo inaan halkii laga soo qaadin madaxweyne Silaayo wuxuu siiyay dhulkii sacad baa loogu diiday madaxweyne Silaayo wuxuu ballan qaaday in jaamacadda Hargeysa loo furi doono saxafiyiinta Somaliland waxa uu abaal naqaynaa safaaradda Ingiriiska inay suurto gelisay sanadkii hore jaamacadda inay furto class degree iyo class diploma hase yeeshee waxaa qabnaa mashruucaasi in uu liicay oo madaxdii iyo mas'uuliyiintii aan islahayn halkaas ka sii wadaya runtii inaanay waxba ka qaban. Gudoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka ee Wicha Marwa Fahme Yuusuf oo iyaduna furitaanka shirkan ka hadashay ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in madashaasi lagu soo bandhigo tabashada jirta. Marwa Fahme waxay si gaar ah ugu dheeraatay doorka ay haweenku ku leeyihiin warbaahinta iyada oo nasiib darro ku tilmaamtay in aanay kaalintii ay mudnaayeen ka helin hay'adaha warbaahineed ee dalka. tabashooyinka saxaafaddu tabasho guud bay qabtaa habluhu ka qofayga tabasho gaareen qabaan ha u qabaan inay hawsaskay ka shaqeeyaan iyo dhammaan caqabada marwalba ka hor yimaada taana waxaan odhan lahaa qorshayaasha wasaarad ee laga hadlayo ilaa maalinta beriya in lagu daro gabdhaha cabashooyinkooda gaarka ah oo la siiyo isbesyo u gaara. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo kulankan joogay ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay saxaafaddu u leedahay qarannimada. Wasiirku waxa uu ka jawaabay qaar ka mid ah eedaha uu gudoomiyaha ururka Soldier soo hordhigay shirka. waxaase uu ku taliyay in xukuumaddu ay ogoshahay in wadahadal lagu dhameeyo waxyaabaha la isku fahmi laayahay. Mudane Kaahin waxa uu sheegay in si kasta oo loo kala aragti duwan yahay haddana arrinta waajibka ahi ay tahay in loo midoobo dhismaha dalka iyo horumarintiisa. aragtiyaheena iyo fikradeena siyaasiga ah aynu ku kala duwanaan laakiin waxaynu nahay qolo qura oo qaran qura wada leh sharci qurana wada leh. waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socota labada xisbi siyaasadeed oo ka waramay muhiimadda warbaahintu u leedahay dowladnimada iyo horumarka kuna taliyey in la saxo gaabiska iyo qaladaadka ay sheegeen in warbaahintu ay leedahay. Xamse Xir Saxayd, codka Bariga Afrika, magaalada Hargeysa.